dababka oo gubayaan cawska inoo soo baxay sanadkan alxamdulillah ilaahay waa inoo barwaaqeeyay roob badan ayaan helnay roobkii waqtigiisii dib uu iska jijire fatahaad iyo maaragtay tuulooyin maaragtay xirmay oo la gali waayay iyo maaragtay waxyaabo waa iska jireen alxamdulillah si markii roobkii uu maaragtay inaga dhamaaday faa'iidadiisii waan aragnay oo dhulkii maanta inuu barwaaqo yahay wixii la soo maray waa la ogsoon yahay abaaro fara badan oo xoolo fara badan ay ku dhamaadeen oo dadkii ay ku ceertoobeen ayaan soo marnay haddase wixii yar oo u soo haray ayuu ilaahay nimco u siiyay marka arrintan oo cawskan miyiga oo gubanayo waa in aan mas'uul iska wada saarno runtii ayaan dhawatay meeshan loo helay korkeeda markuu ka bilowday oo magaalada u dhaweeday waxaan dirnay gaarigii dabdamiska ayaa damiyay laakiin countiga hal dabdamis ayuu leeyahay miyi idaarageed walba hoostiisna ma taagnaan kara dabdamis ma awoodna marka wixii aan rabnay inaan iskala shaqeyno waxa weeyaan ka hortag si dabku u dhicin marka waxyaabaan dabkan keena dadka miyiga dhexdiisa waxa dab ku shito wax ku karsado waa in markii ay ka tagayaan ay damiyaan dabkaasi kuwan oo maaragtay cabaan sigaarka iyo tuwaakada iyo waxaan samaystaan waa in aysan tuurin wixii oo weli maaragtay afka nool oo damiyaan way dabka iskama bilowdo qofan baa uu maas asaaso si uu ku asma dhulku iskama gubto marka walaalayaal in aan ka taxadirno oon cawski aadan gubanin oo cawskan khatar baan ku sugnahay hadduu meel buu ku gubto tuulooyin idaa lagu gubi karaa runtii wax weyn oo laga tari karna ma leh oon ahayn ka hortag markuu bilowdo oon xarbinaynaa taragta dirkan yeel laakiin waxaa ka muhiimsan in aan ka hortagno